السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابي كسر دوادة برنامج كينا مانتا ديريجلين موضوع عن كسر قاعدينه أو موضوع انت بدن أفكار لغا دورة أم بقى لغا هذا موضوع أسوح وين domestic abuse كا أم بقى إن أفصامالي هدي إنو سكوتيني نكو بدلنو بهدلاد مسكحات iyo waxyeelada jirka ee ka dhaxdhaca qoyska gaar ahaan labada qof ee isqaba amba xidhiidhka leh sababta keenta sida uu u dhaco qofka uu ku dhaca dabeecadiisu sidii isku bedeshaa shakhsiyadiisu sidee bay isku bedeshaa waa maxay hubka uu qofku isticmaalo qofka wax dhibaya ee dhibanaha uu isticmaalo inagoon ka hadlahayn gacan ka hadal sidoo kale gacan ka hadalkuna waa qayb ka mid ah waxaan u qaybin doonaa abuse-ka laba qaybood oo ah qayb la arki karo iyo qayb aan la arki karin oo qofka macnaha qayb aan la arki karno runtii ah qaybta aadka iyo aadka oo xun isla markaana xataa qofka uu ku dhacaya aanu marmarka qaar dareemi karin oonu garan karinba inay dhacayso iyo in kale sidoo kale waxaan u qaybin doonaa domestic abuse-ka 5 qaybood shantan qaybood uu ka badan yahay laakiin maanta inaga ayuunba barnaamijka kusoo qaadayna shantan mawduuca oo dhan waxaan uga hadlaynaa si guud mar ah isla markaana haddana qaybsan oo qofku xasuusan karo fikir guud oo wacan oo ka qaadan karo haddii aan ku horeeyo shanta noocan maanta u qaybinayno midka koowaad ayaa ah kan maskaxdaada markiiba kusoo dhacaya marka aan ka hadlayno waxyeelada maskaxda ama garaacida jirka qofka loo geysanayo waana xaweyaan physical abuse-ka amba waxa jirkaaga loo geystay ee muuqanaya ee nabara ee qaniya ah ee dhirbaaxa ah ee qanjiira ah wuxuu toona ahaado wax kasta oo ka muuqanaya oo korkaaga loo geystay oo waxyeelo ah oo uu ku geystay qof kula nool guriga amba qoyskaaga kamid ah amba qofkii aad nolosha la wadaagaysay kaas inta badan waa mid muuqda qofkuna aanu madmadow kaga jirin inuu meesha abuse ka jiro ka labaad ayaa waxaan oran karnaa wax ka maskixiyanka ah amba qofka dareen ahaan loo dilo psychological and emotional abuse-ka hubka la isticmaalaana uu yahay afka qofka iyo kelmadaha sida sharaf dilka iyo hoosu dhigi joogta ah oo maskaxdiisa dhaawacda isla markaana shakhsiyadiisa bedesha awoodda ka qaada oo qofka kale ku wareejisay inuu awoodda iyo controlka intaba yeesho sidoo kale waxay soo hoosgeli kartaa in qofka la manipulate karayo amba maskaxda laga qabsado siday af Soomaali ku noqonayso ka saddexaad ayaa waxaan odhan karnaa waa mid aan sharaxaad u baahnayn isagu waa sexual abuse-ka oo ah kufsiga amba faraxumeynta amba xumeynta jirka qofka ayada oo loo gacan dhaafayo isla markaana aanu qofka raali ka ahayn lana khasbayo lana xoogayo si dhibaato lana macnaha jirkiisa loo xoogayo ma aha harin u baahan in runtii aan sharaxno waa arrin aad u foolxun qofka maskaxdiisa caqligiisa naftiisa shakhsiyadiisa jiritaankiisa intaba baabiso oo xumaysa kan afraad ayaa waxaan odhan karnaa asaguna waa mid dhammaan shanta noocba la socda oo soo hoosgeli kara waana kan qofka keenaba inuu ka tegi waayo meel lagu dilayo amba lagu xumeynayo amba lagu dhibaateynayo waana mid isaguna xun oo aad u xun waxa weeyaan financial abuse-ka amba bahdilaada iyo ciqaabida dhaqaalaha qofka dhaqaalihiisa hadduu qofka kale gacanta ku hayo noloshiisu gacanta ku haya qofka haddii abusada kor kusoo sheegna loo geysto waxay keenaysaa inuu shaqaysan kari waayo tana dhaqaalihiisa ay saamayso in qofka amba hooyada xataa iyadoo aqoon leh oo shaqaysan karta loo ogolaan waa inay shaqaysato oo ay guriga joogto isla markaana ay ku tiirsanaato ninkeeda ma odhan karno hooyo kastoo la biiliya waa la abuse karaya oo way xun tahay laakiin waxaan sheegaynaa oon ka hadlaynaa oon ku koobannahay keliyata qofka qof dhibaateynaya hababka uu u mari karo uu dhibaateynayo qofka dhibanaha ah haddii dhaqaalihiisa gacanta lagu hayo amba dhaawac loo geysto waa arrin aad iyo aad u xun oo aanu qofku si dhib yar uga bixi karin oo ay dhici karto inuu isiraahdo years mana sanado badan uu isiraahdo mar baad ka bixi doontaa maxaa taqaanaaye in yarta shaqayso hata lacag meel dhigo horta oo laga yaabo qofku inuu ciqaabta ku noolaado muddo aad iyo aad u dheer arrinta dhaqaalaha haddii aan inta kaga gudubno ka u dambeeya ee shanaad ayaa ah
abuse-ka ruuxiga ah amba spiritual abuse-ka waxa loo yaqaano oo ah diinta. inaga haddii aan ka hadalno, diinteenu waa diin macaan oo sharaf leh oo qiimo leh oo rag iyo dumar intaba qiimeysay, oo amniga qofka iyo sharafta qofka aad iyo aad u qiimeysay, oo haddii diinta si fiican loogu dhaqmayo haba yaraataan uu abuse dhici karin. hase yeeshee waxaa jira dad diinta u isticmaala in ay qofka kale ku ciqaabaan, oo qofka kale ku controlaan, oo qofka kale power mataqaanaa ay amba awood kaga raadiyaan oo iyagu ku qabsadaan, in qofka kale ay ku hogaamiyaan oo ay cagta hoosteeda ku geliyaan, oo qofka kale waxaanu amba ninka ahaado amba naagta ahaado, yacni qofkaasi wax aanu samayn lahayn amba aanu yeeli lahayn ayaa lagu yeeshinaya, la odhanayaa diintaa banaysay, diinta ayaa santiri, diinta ayaa caynkana, diinta ilaahay baa baneeyey. macnaha qofkii haddaan aqoon badan oo buuxdo lahayn, waxaa laga yaabaa ninka amba naagta amba ilmaha, macnaha markaan ka hadlayno qoyska, domestic maaha ninka iyo naagta waxay isku geystaan oo keliyaata, laakiin xataa ilmaha meesha ku nool, cidda qoyska ku nool, qoyska oo dhan wixii ka dhexdhacaya domestic abuse-kii ah amba bahdilaadii iyo waxyeeladii jirka iyo maskaxda labadaba. haddii dadka diinta loo adeegsado ayadoo ujeedada laga leeyahay tay in lagu kontaroolo oo lagaga awood bato oo cagta hoosteeda lagu geliyo, waa arrin aad iyo aad u xun oo qofku uu ku noqonayo adoon asagoo aan ka raali ahayn laakiin waxba ka qaban karin. marka arrinta qodobkaas macnaha shanaad waxa weeyaan qodobka ruuxiga amba spiritual abuse-ka la yidhaahdo, oo ah in qofku wuxuu aaminsan lagu gumaysto. markaad dhegeysanayso barnaamijkan oo kale, ambaba aad mawduucan ka hadlayso, amba aad akhriyayso, amba aad research ku samayso, amba aad aragta, markiiba maskaxaada waxaa kusoo dhacaya maxaa kalifayo qof bilaadan qofka kale inuu dhibaateeyo amba uu abuse garayo asagoo la nool amba qoyskiisaba uu ka mid yahay. aniga fikirkayga su-aasha aad bay u fududahay. waxa weeyaan qofkan dhibaateynaya dhibanaha keliya wuxuu rabaa inuu gacantiisa ay soo gasho control iyo power. qof kasta muu sameeyaa maya, qof kale qof xunun baa sameynaya amba qof xanuunsanaya oo disorder haya sida narcissistiga oo kale, waxaan laga bogsan karin ah, oo qofka weligii yaalihii uu qabayo dabeecad mataqaana inuu isagoo isku arko qof saxsan, isla weyn, ma garanaysaa calaamadaha narcissistiga oo kale oo dhan la yaqaano. marka qofka inuu power iyo control helo oo qofkan controlo ayuunbaa inta badan keenta. waxyaabaha aan sheegnay oo dhanna waa qaab uu isticmaalayo un sida uu qofka maskaxdiisa iyo naftiisaba gacanta ugu qaban lahaa, waa tuulkii uu isticmaalayay. abuse-ku ma aha wax qofka ku bilaamo oo ku dhaco oo markeliyato amba la qabto amba la caayo amba la dilo. waa wax aad yar bilaamo, waa wax si ilma qabataya oo dareenkaaga iyo naftaada aanay qabanahayn u bilaamo inta badan, isla markaana si cajiiba oo waxyaalo fara badan leh u kora. marka haddii aan u qaybino laba, kan muuqda iyo ka aan muuqan, waxaa dhici karta qofku inuu abuse muddo dheer ku noolaado, maskaxdiisa noloshiisana ay baabiso, sida aad kaga bogan karto labadan qaybood aan soo wadno. haddii aan ku bilaabo ka qarsoon amba abuse-ka aan la arki karin, ayaa waxaan odhan karnaa tusaale ahaan waxa weeyaan abuse-ka qarsoonni yacni maaha mid aad haba yaraatee caddayn karto oo maskaxda qofka dhibana ah ku ridaysa shaki. yani waa wax maskaxda qofka dhibana shaki bay ku ridaysaa, mabaha wuxuu caddayn karo odhan karo wallaahi qofku waxaas igu sameeyey igu xadgudbay isla markiiba yaa. laakiin waa qofka maskaxiisa waxay ku ridaysaa shaki, waxay ku ridaysaa isku buuq, waxay ku ridaysaa inuu isku meereysto amba mataqaanaaye uu khaladka isagu isa saaro yidhaahdo waxaa qofku markuu igu yidhi amba saaysaa markuu ii caaya amba saaysaas markuu hadalka kor igu qaado amba saaysaas markuu ii bahdilay. macnaha khaladkii markaa jira waxaa dhici karta aniga haddii aan sidaa yeeli lahaa qofku saa imu odhan lahayn, haddaan anigu waxaa samayn lahaa qofku saa imu odhan lahayn, haddaan anigu caruurta xilli hore geyn lahaa iskuulka inay ka harsaaman layguma qaylin lahayn. haddii macnaha inuu qofku sababeeyo maadaama aanu sababeyn karin sababta qofkani waxaanu samayn amba waxaan inay dhacayaanba, waxa inta badan la arkaa qofku inuu isaga isblame gareeyo amba uu khaladkiisa saaro. sidoo kalena qofka kale isaga ayaaba qof ku blame gareynayo khaladka ku saaray, ada caynkaa yidhi, ada waxaa sameeyey, wax walba adiga marka lagugu blame gareeyo ee lagugu wado dabcan maskaxdaada dhaawac bay u geysanaysaa, adiguna waxay soconaysaa malaha adiga ayaaba khaldan.
waxa laga yaabaa inuu noqdo mataqaanaa qof mar walba warwarsan oo walbahar ku jiro sida amba anxiety inuu qofku ku dhaco. waxa kamida sababaha waxyaabaha qofka loo isticmaalo marka qofka dhibanihi sida noqonaya waxa kamida in qofkan wax abuse gareynaya uu ku yaso si kaftana uu qofka u yaso asagoon ku cadeynahayn xumaan badan aan u sheeginahayn amba aan tusahayn hadana qofkii hoos u dhigid sida oo kaftan iyo dhoola cadayada wadata qofkii hoos loo dhigo oo qofka la caayo oo qofka wax laga sheego oo qofka mataqaana miirqabkiisa su'aal la geliyo tusaale ahaan oo kale qofku markuu waxaasan ku ballanay maalin heblaayaan ballanay uu qofkii wax abuse gareynaya yiraahdo maynaan ballamin malaha maalintaa may ahayn malaha sidaa iguma odhan iyo saa uma jeedin maalmo caynkaa uma jeedin waxaa kuguma odhan yacni waa su'aal badan oo aan jawaab lahayn qofka maskaxiisa waxa ka buuxsamaya su'aalo bila jawaab ah ingiriisida amba afka qaad waxa lagu yiraahdaa gaslighting in qofka qarfi kibrid lagu sii qabto maskaxdiisa mar walba oo mataqaanaaye in su'aal la geliyo wax walba oo dadna qofkii isaga dhan uu su'aal isgeliyo fikirkiisa su'aal geliyo hatta abuse-ka dhacayo su'aal geliyo yiraahdo talo abuse-ka nimi kugu dhacaya talo macayn kana malaha sidaa maaha maxaan ku rahdaa dabatana uu go'aankiisa su'aal geliyo taasina ay keento qofka gaslighting-ka lagu sameeyo inta badan kama tago mataqaana abuse-ka kamana baxo waasoo uga bixi karaa adiga isagii oo dhan ba su'aal soconaysa isagii go'aankiisa ba su'aal ku jirtaa wuxuu isweydiinayo su'aal ku jirtaa wuxuu arkayo ee hortiisa ka dhacaya ay oranayaan malaha ma hebelo mayla arkaysa qof fahmaysa macnaha waxay ku qaadanaysaa in la cadeeyo hadana confirmation lagu sameeyo waa arkay ama qof kale uu weydiiyo oo wado isku soo duuba qofku wuxuu noqonayaa qof waxa waa ismoodsiisay amba waad u malaysay amba niyo masaasay kula hayd anigu maan odhan uma jeedin maya maad arkin maana iri marka laga badiyo inuu noqdo qof su'aal xambaarsan oo go'aankiisu xataa su'aal ku jirto oo mataqaanaa isku dabaqsan waxyaabaha kale ee qofkan wax abuse gareynaya oo isticmaali kara muuqan oo qofka kale maskaxdiisa iyo qofnimadiisa luminaya waxa kamid ah in qofka la dayaco dareen ahaan tusaale ahaan oo kale inaan qofka la siin attention amba aan mataqaana aan maskaxdaada soo jeeda aan siinin aanad waqti gaar la qaadanin aanad qofkii kalgacayl la wadaagin aanad la sheekaysanin waxyaabahaas oo dhan marka macaluul lagaga rido eedna maalmaha qaar la siiyo attention la siiyo amba hadii loo keeno amba la dhageysto amba waqti la qaato amba la soo casheeyo amba la soo lugeeyo qofkii wuxuu arkayaa inuu qofkani weli jeceliyo isla markaana waxyaabo caadiga ahaye ee muujinaya dareenka uu sameynayo dabeetana uu ku qancaya haddana wuu ogyahay inuu waxa macaluul lagaga riday oo aan caadiyin iyo mar walba maalin walba la sameyn haddana su'aal baa ku jirta sayn hore u soo sheegnay abu su'aal buu qofka noqonaya su'aal ba maskaxdiisa ka buuxda aanu cadeyn karin macnaha wixiina maskaxdiisa iyo shakhsiyadiisa iyo kalsoonidiisa way dhaawacayaan marka lagu sii wado bana inta badan dadka la abuse gareeyo sadan ka aragno shakhsiyadooda isbedesha kalsoonidooda isbedesha qiimaha naftooda u hayaan ba isbedesha sidii naftooda u arkaan ba isbedesha dadka kale sidii ula saaxiibayaan ba isbedesha tanina waxay qayb ka qaadataa in isbedelada noocaas in qof ku dhaca tusaale kale waxa kamid ah in qofka stonewalling lagu sameeyo amba in qofku uu gidaar noqdo macnaha in haddii tusaalaan qofkan dhibanaha ka wax abuse gareynaya haddii ay isku caroodaan amba wax dhacaan inuu qofkan dhibanihi yahay qofka marba safarsan oranaya waxaasa dhacaysa isaasan u xalinaya amba qofkan uu sheeko muhiima buu rabo farxada uu rabo inuu qofkan la wadaago amba wax guri ka dhacay buu doonaya macnaha inuu communication la sameeyo ayuu rabaa oo qofkii la fadhiisto oo soo hor fadhiisto laakiin qofkan kale waa gidaar wixii farxad iyo naxdin iyo waxay doontaba ha ahaato wuxuu gelaya wax ka soo baxaya toona ma jiraan wuxuu qofkii ku soo celinaya ma jirto abulay wixii weys dhaafinaya macnaha wixii wada dhaafayaan qofkan dhibanaha taasi maskaxdiisa iyo naftiisa bada dhibaatay ku tahay dhaawac bay ku tahay sababta wixii uu doonay muu gudbin lama dhageysan make-up bixin macnaha communication iyo qiimeyntii qofka fikirkiisa iyo hadalkiisa iyo dareenkiisa meesha way ka baxeen marka taa laftigeedu waa arrin keenaysa qofku inuu naftiisa lumiyo shakhsiyadiisa lumiyo kalsoonidiisina lumiyo sidan hore usoo sheegnay
kuwan macna saddexdaa wax waxaan kusoo koobi karnaa inay yihiin tusaale muraayad laga dhex arkayo waa maxay abuse-ka qarsoon eenu qofku arki karin isla markaana wax yeelan kara oo shakhsiyadda qofka bedeli kara waxa maskaxdaada kusoo dhacaya oo balwaaye haddaba waa maxaa kamid ah abuse-ka muuqda abuse-ka muuqda uu iska cad yahay runtii waa ka lagu geysto afka ama gacanta tusaale ahaan inta badan waa kan afka laga geystay ee sida cayda qaylada magac ugu yeedhida hoos u dhigida awoodda shakhsi ahaaneed haddii aad wax fiican qabato kala tusaale ahaan inaanu qofku ku hambalyeynin haddaad wax ku guuleysato inaan la weyneynin haddaad wax weyn oo muuqdo aad qabato in la yareysto oo qofku kasoo qaado wax dadkao dhami qaban karaan tusaale ahaan company waa ka shaqeysaa waxaad ku guuleysatay inaad tahay shaqaalihii bisha ugu fiicnaa ama markaa ugu fiicnaa ama wax muhiim ah qabata ama bilad baa lagu soo siiyay gurigaa timi wax laga yaabaa dadkii shaqada joogo dhanba ku weyneeyay waa wax weyn wax laga yaabaa qofkani xataa hadduu ku hambalyeeyo xataa hadduu kuu farxo inaanay ahayn marnaba miisaankii ay u dhigmaysay hawsha aad qabatay mar walba qofkani wuxuu kaa hooseysiinayaa inta aad qabatay markay hawluhu isagoo quseeyaan wax kasta waa wax weyn oo micno sameynayo oo kale arago oo adigu aad ka qayb qaadanaysid laakiin wax kasta adiga ku quseeya hoos ee shakhsi loo dhigay taasna waxay keenaysaa qofka shakhsiyadiisa iyo qiimihiisa inay hoos u dhacaan marka lagu celceliyo muddo fara badan lagu celceliyo cayda iyo qaylada qofka 24 saaco hadii lagu qayliyo inagu waxaan ninaana qofkaas uu habsoobaa ama lacanaanta ilmaha lacanaanta uu habsoobaa haddii 24 saacadood meesha qayli ka taagan tahay oo qofku kugu qaylinaya isla markaana aanay xal lahayn khaladkii qofku qaadanahayn raaligelin aanay jirin waxay keenaysaa qofka maskaxdiisa iyo naftiisaba inay ku keento mataqaana culays ay ka dhashaan xanuunada sida depressionka iyo wixii la mid ah iyo stress joogto ah markuu maalin walba joogo waxa laga yaabaa qofku inuu depression ku dhaco amba isku booq in qofka magacyo loogu yeero liidaya sida laangare cawar buuro gaabo qof wax matara ah macnaa wax kasta oo qofka cay kastoo lagu celceliyo oo qofkani qof mataqaana qiimeynayo oo micno u sameynaya oo ku celceliyo dhaawac weyn oo cajiiba oo muuqda ay u yeelaysaa nafti macnaa oo ka muuqanaya amba dhaqankiisa amba habdhaqankiisa amba siduu u hadlayo amba siduu u muuqdo amba haddii qofku dee uu gacanta markaa ula tago ay gaadho heer gacaneed iyadana waxa weeyaan in waa abuse muuqda arinta kale oran karno abuse-ka muuqda waa arinta iyadana aad ka foosho xunin hore uga soo hadalno faro xumeynta iyo xadgudubka qofka lagula kaco jirkiisa adoon ka raali ahayn sida taabashada dhunkashada iyo wixii lamid ah amba in gaadho heer la xoogo oo qofka markaas mataqaana amba hal mar la xoogo amba muddo la joogteeyo oo la xoogo kaasoo isaguna kasii daran macnaha dhibaatadii sii joogtooday nama waxaan la qiyaasi karin qofka dhibaatadii u geysanayso laakiin haddii aan isku soo duubo qofka la abuse gareeyay amba la bahdilay maskax ahaan iyo jir ahaanba calaamado aad u badan buu leeyahay laakiin haddeen mid iyo laba afka ku dhufano qofku macnaha waxay dareemayaan in warwar iyo waali amba walbahaar iyo isku mashquulsanaan aan garaneyn meesha ka bilaabantay xilliga bilaabantay iyo sida u bilaabantay ay ku jiraan mar walba runtiina uu go-aan inay qaataana ay aada ugu adag tahay qofka la abuse gareeya abuse-ka inuu ka baxa waa guul weyn waa arrin aada u weyn oo qaadata waqti dheer iyo caawimo fara badan waxa kale oo la oran karaa waxyaabaa lagu garto qofka ama qofka la abuse gareeya isku arka wax kamid ah waxay u muuqdaan kuwa khaldan hadii jaraale oo hadaad wareysato waxay isku oranayaan macnaha khaladka iyaga isa saaraya because of qof mar walba la blame gareeyay oo khalad kasta la saaray marka waxa laga yaabaa inuu isagu isku arko inuu mar walba khaldan yahay waxa laga yaabaa xataa adigu hadii aad la kulanto qofka la abuse gareynaya ka dhibanaha ah ka abuse gareynaya baan u jeedaya ka dhibanaha inaad dhibanaha u aragto inuu yahay qof xun oo khaldan sababtuna waxa weeyaan inta badan dadkan dhibanayaashii way caareysan yihiin mar walba waa dad cabanaya oo qaylinaya oo naftu hayso
oo mataqaana gubanaya dadna waxa laga yaabaa qofka haduu labadan qof la kulmo in qofka dhibana uu yiraahdo qofkan waa qof miskiin ah kii hada wax dhibaya weeyay karo oo macnaha iska aamusan in kii dhibanaha iyo cabasho iyo oohin iyo marar dilaac waxaan ku gubanaya uu qofka kale ee la kulmay yiraahdo niyo qofkan aba dhib badan ba qofkan inta qaylinaya caynkana laakiin xasuusno qofka dhibanaha waxa dabba ku shidan holacba ku shidan naarba ku shidan maskaxdiisa iyo naftiisa jirkiisa 24 saacadood gaas kibrid baa lagu qabanaysaa dirteed qof ololaya oo gubanaya oo cabanaya oo laga yaabo inuu anu wali fahamsaneyn inuu abuse ku jiro ama macnaha waxa ka khaldan ama sababtay waxa noo dhacayaan qofka wax dhibaya ee diblowga ah ee wax abuse gareynaya wax alaaliya wax gubaya iyo sabab ugu careeyay adoo aan u maro dilaaca meesha mataana marka hada jiraale qofka degan ayuu u eegayahay xiriirka inta badan dadka abuserska ah amba dadka dhiba amba qoyskooda dhiba amba xaasaskooda dhiba ama nimankooda waa dad markii dibadda u baxaan loo yaqaan dad happy oo farxada oo bulshaawiin oo dadka dhaxgala dadkan dhibanayaashiina waa dadka ka go'a oo laga yaabo in loo arko ku isla weyn amba iyagu dadka dhibaya saadirteed waxaan idinku dardaari lahaa haddii aad la kulantaan laba qof inaanad xukumin markiiba aad macnaha aan isku fiirsano isku naxariisano calaamad kale qofka loo garan karo waxa weeyaan calaamad aad iyo aad iskaga cad oo ah in qofkii aad ku aragto nabaro kaga yaala wejiga jirka laabta iyo qofka qarinaya amba gacmo dheer xiranaya amba wax qoortiisa qaray xiranaya nabaro qofku uu qarinayo macnaha dad kufta gacanta ku madoobato ma qarinaysa sababtoo macnaha sabab u qariso ka dambaysa ama jirto waad kuftay oo dhacday waxa kama qaban kartid laakiin waxa laga yaabaa isla meeshaas isla nabarka mid u eega haduu kugu yaalo oo lagu dhufto qof aad nolol la wadaagayso kugu dhuftay in adigoon is ogeyn aad qariso oo dareento shame iyo macna ceeb inaad dareentid marka calaamadaha lagu garan karo ay ka mid tahay waxaan kaloon rabaa inaan hoosta ka xariiqo abuse-ku waxa uu ku jiri karaa laba qaab kow in qofku ku dhacay aanu wali dareensaneyn amba uu ignore gareynayo ilduufayo oo mataqaana aanay ahayn xaqiiqo uu aqbalo uu yiraahdo okay wallahi waxaan ku nolol abuse waxaan u baahayna ka baxo ilaa intuu qofku aqoonsanayo kulli wuu soconaya abuse-ku oo ma joogsanayo iyo beenta iyo dhibaatada qofka lagu hayaa sida labaad oo ku socon kara waxa weeyaan in qofkan la abuse gareynaya uu yahay qof macnaha xaalad xun ku sugan oo uu aqbalay abuse-kaas oo mataqaana uu arko inaan ka bixi karin aba noolaan karin aba dhaqaalo kaga tagaano haysan sida dirteed amba qofka bila sharci yahay oo wadan sharci la ku nool yahay saadirteedu uu aqbalo oo qofkan kalena uu ogyahay inaanu qofka dhibaataysan aanu choice haysan saadirteed loo dhibayo marka xaaladaha ku soo socon kara ee uu ku jiri kara ay ka mid tahay mawduucina intaasan kusoo koobaya maanta waxaan rajaynayaa inaad wax badan ka faa'iideen waxaan rajaynayaa inaad dadka aad u fiirsataan oo inta aad u aragtaan calaamadahan inay hayaan aad u naxariisataan aad iyo aad ba u mahadsantihiin inaad dhegeysateen barnaamijka isbuucan waa inoo isbuuca dambe insha allah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu